dhabar xanuunka ku yimaada hooyada xilliga ay uurka leedahay iyo siyaabaha dabiiciga oo aad kula tacaali kartid. dhabar xanuunka aan wax kala wehlin xilliga uurka waa calaamad oo dabiici ah oo ay ka siman yihiin guud ahaan hooyooyinka uurka leh. maxaa keeno ama sababa dhabar xanuunka xilliga uurka? siyaabo badan ayay ku yimaadaan, waxaana ka mid ah kala bixista murqaha loo yaqaano rectal abdominal muscle oo mara caloosha dishooda. sida aad shaashada ugu jeedaan waxaan casaanka waa murqihii loo yaqaano rectal abdominal muscle. hooyadu markay uurka ay qaado, gaar ahaan bilaha dambe ee uurka, caloosha waxay cadaadis soo saaraysaa murqahan. markay cadaadis saarto, murqaha waxay bilaabayaan inay kala baxaan. kala bixistaas ayaa waxaa keenayo dhabar xanuunka. waxaa kaloo keeni karo hormoonada uu jirka uu soo deeyay xilliga uurka, gaar ahaan hormoonka loo yaqaano relaxin. yani hormoonkan wuxuu wax ka bedelayaa ama uu jilcinayaa kalagoysyada, carjawga iyo lafka miskaha. wuxuu u diyaarinayaa foosha ayuu u diyaarinayaa. sidoo kale waxaa keeni karo isbedelada ku yimaada laf dhabarta hooyada. maxaa yeele hooyadu markay uurka ay qaado, gaar ahaan bilaha dambe, culeys badan ayaa kusoo kordhaya. markaas laf dhabarka way soo godanaysaa, hore ayay usoo godanaysaa. haddii aysan laf dhabarkaas ay soo godanin, hooyada hore ayay u dhici lahayd. maxaa yeele laf dhabarka ilaahi subxaana watacaala ayaa sidaas u abuuray. markay soo godato, culeyska wuxuu korayaa labada lug ayuu korayaa. sidoo kale waxaa keeni karo cadaadiska ama pressureka koray xididadii dhiigga iyo neerfaha marayay laf dhabarka. haddii hooyada uurka lehi ay dhabar xanuunka usoo raacaan calaamadahan aan hadda magacaabi doono, waxaa laga doonayaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan ee dhakhtar la xiriirto. dhabar xanuun oo aad u daran oo aan kala go' lahayn, sidoo kale dhabar xanuun ay wehliyaan xumad, dhabar xanuun ay la socdaan dhiig iyo xanuun oo gumaarka ah, dhabar xanuun oo degdeg ku bilaawday saacadaba saacadda ka dambeyso kaga sii darayo, ama haddii ay dhabar xanuunka ay la jiraan in ay kaadida ku dhibto ama ay kaa imaa weydo. intaba haddii aad isku aragtid, waxaa lagaa doonaya inaad dhakhtarkaaga la xiriirtid. intaas kadib waxaan u gudgalayaa daaweynta. daaweynta waxaa wanaagsan inaad dariiqo kala duwan aad martid ilaa iyo 2 step. stepka ugu horeeya waa inaad wax ka bedeshaa ama aad saxdaa dhammaan qodobadan soo socdo. ugu horeyntii waa inaad wax ka bedeshaa muuqaalkaaga markaad jiiftid, xilliyadaa fadhisid iyo markaad socotidba. intaas inaad muuqaalkaaga saxdid ayaa loo baahan yahay. tusaale ahaan markaad fadhisid oo kursi aad ku fadhisid, waxaa lagaa doonayaa dhabarka ama xagga dambe inaad barkin aad soo tiirisid si oo dhabarka kaaga taageero. sidoo kale waxaa samaynaysaa lugahaaga ma ahan inaad isdawamarisid. lugaha waxaa lagaa doonayaa cirbaha inaad dhulka dhigtid. sidoo kale intay dhulka kuu yaalaan waxaa lagaa doonayaa in cirbaha aad ka shaqaysiisid. sidoo kale waxaa xiranaysaa sharbad ama sagsaan oo xagga hoose iyo lugaha kaaga dhegan. markaad jiifanaysid, waxaa lagaa doonayaa marka hore inaad sariirta ku fadhiisatid, ay stable iska dhigtid, markaas kadib aad seexatid. sidoo kale markaad soo kicaysidna waa inaad soo fadhiisataa. hore inaad kasoo kacdo looma baahno, waa inaad fadhiisataa. markaas kadib aad soo istaagtaa. hooyadu waxaa laga doonayaa inay dhinac bidix u seexato. sidoo kale lugaheeda inay fidiso maahan, lugaha sidaan oo kale inay usoo laabtay ayaa loo baahan yahay. jilbaha dhexdoodana ay gelisad, barkin ay gelisad. marka ma rabo inaad jiifka hooyada aan ku daaho, maxaa yeele hore ayaan uga soo hadlay hababka ugu wanaagsan ee hooyada uurka leh u seexan karto. hore uga soo hadlay. fadlan haddii aad doonaysid, channelkayga waa ka heli kartaa. sidoo kale shay markaad dhul ka soo qaadaysid ama carruurtaada soo xambaaranaysid, ma ahan inaad fuuraarsatid. waxaa samaynaysaa marka hore waa fariisanaysaa adigoo dhabarka aad godaynin. dhabarkaaga stable inuu ahaada loo baahan yahay. markaas kadib ayaa soo qaadaysaa, ama sidaan oo kale jilbaha ayaa laabanaysaa. markaas caadi ayaa usoo qaadaysaa, maahan inaad fuuraasatid. sidoo kale waa in aadan xiranin kaba oo taaka leh ama jaan leh ha isku xiranin. sidoo kale waa inaad nasiino badan aad qaadataa. sidoo kale haddii xanuunka uu kugu ziyaado, paracetamolka waad qaadan kartaa. waxaan kaga digayaa inaad daawo walba aad qaadatid. xitaa paracetamolka markaad qaadanayso waxaa loogu baahan yahay inuu dhakhtarkaaga kuu fasaxo. haddii aan u gudgalo wejiga labaad ee daaweynta, meesha ku xanuunaysid ama dhabarka ayaa waxaa saaraysaa qawow ama kuleel ayaa saaraysaa. kubaayadda ama cinjirkan ayaa waxaa kusoo shubanaysaa biyo kuleel ama qawow ayaa kusoo shubanaysaa. waxaa saaraysaa marka ereyda ama dhabarka meesha xanuunka uu ka hayo ayaa saaraysaa. 20 daqiiqo ayaa ku heynaysaa. maalintii marka 3 jeer ayaa saaraysaa ilaa ay xanuunkii oo ka yaraado. sidoo kale qeybaha hoose ee caloosha waxaa ku xiraysaa sunkan ayaa ku xiraysaa si ay xanuunkii kaaga yaraado. sidoo kale haddii aad helaysid xirfadleyda caafimaadka oo masaajka sameeyo, waa aadi kartaa, ama chiropracticalka waa aadi kartaa. waa inaad samaysaa jimicsi joogto ah, waa inaad samaysaa sida orodka iyo dabaasha.
maxaa yeelay murqihii way adkeynayaan sidoo kale culeyskii ama pressureki saarnaay laf dhabartane way yaraanaysaa. qaabkee u samaynaysaa marka hooyada uurka leh jimicsi? waxaa laga doonayaa calaacalaha, jilbaha iyo lugaha inay dhulka sidaan oo kale aad u dhigatid, saan oo kale u dhigaysaa. waxaa laga doonayaa marka muuqaalkan oo afar geeska inaad samaysid, dhabarkana waa taagaysaa, ma godaysid dhabarka. markaas kadib ayaa xagga caloosha ayaa pressure saaraysaa. okay, pressure markaa saartid xaggan dambana saana usoo taagaysaa sida gabadhan ay sameynayso kale. okay, markaas saan 5 second ayaa ku heynaysaa, waa soo deynaysaa, haddana dhabarka soo godaysaa, 5 second kale ayaa ku heynaysaa, waa ku celcelinaysaa ilaa ay 1 daqiiqo.